Leyla Cabdilatiif oo ka digaysa doolarka iyo lacagta yuuraha khasaarada weyn ee kusoo socoto iyo hoos u dhaca fideogan meel dheer gaarsiiya. wallaahi bisaraaxata fideogan dad badan ayuu anfici doonaa, khaasatan dadka ku jira ganacsiga online-ka ah. yani ganacsiga online-ka markaa leeyahay lacagta sarifka dadka maxaa la dhahay ka shaqaysta, waxaa laga yaabaa khasaaradaas inay saameyso. Leyla Cabdilatiif waxay dhahday dagaalada waxay hoos u ridi doonaan dhaqaalaha adduunka. dhaqaalaha oo ka mid ah lacagta doolarka iyo lacagta yuuraha hoos ayay u dhici doontaa, dhulka ay tagaysaa ay dhahday. marka maxaa la dhahayay waxaa badbaadayaan ay dhahday dadka dahabka haysta bes waxay dhahday laga yaabaa inay yani laga yaabaa ma ahan oo akiid ah insha Allah inay badbaadaan. sababtoo waxay dhahday dahabka markaas maxaa la dhahayay cirkuu tagaaya dhahday, oo lacag fiican qofkii dahab haysta lacag fiican uu goynaa. laakiin dadka hantida dhulka haysta ama hanti maxaa la dhahay lacag kaash ah meel u taala, khaasatan dadka kaashka horta zaa'id u saameynaa. sababtoo ah lacagta kaashka hoos u dhac weyna ku imaanayo xilligaasna qof dhul iyo wax gadanayo maba jiraba. ilaahana badbaadiyo. oo maxaa la dhahay dhaqaalaha wuxuu saameynaya nolosha dhan uu saameynaya maciishada wax kasta. marka waxay dhahday dadka dahabka haysta ayaa badbaadayo. waxay dhahday waxaa ugu digaya ummadda muslimiinta dhammaan ummadoo dhammaan in ay dahab kaydsadaan si ay maxaa la dhahay xilligaas ay ugu baxsadaan dahabkooda. marka fideogan hala sheergareeyo, meel dheer hala gaarsiiyo soomaalida ganacsatada ah. maxaa la dhahay insha Allah biidhnillah waxaan rajaynayaa hadalkan inaad ka faa'iidaan oo lacagtiina aad dahab gelisaan. ganacsi bas maahan, qof kastoo lacag meel u taalo lacagtiisa dahabka ha gashto. dahabka waxay dhahday dadka dahabka haysta bes xilligaas taajiriin noqonayaan. xilliga soo socdo haddaa malaayiin doolar ee akoonkaada kugu jirto waxay noqonaysaa maalayacni. ilaahay ha u naxariisto dadka faqriga ah oo wax aan haysanin. azmal lahaa yani waxaa waaye xaalad yani abaar. ilaahay naga badbaadiye abaartaas, intaasoo dhaafna ilaahay noogu ekeeyo. marka haddii aad lacag haysatid lacagtaada dahab gasho walaal. $1 ma ugu yaraato dahab gasho, lacag kaash ah meel ha dhiganin. azmadaasna wax oo waqti dheer ma ahan, laga yaabo inay maxaa la dhahay 2 sano oo soo socdo 2025 ilaa 2026 laga yaabaa inay dhacdo, allahu aclam. cabsidan maxaa la dhahay waa la wada socotaan oo dagaalada in laga cabsanayo. dagaalka Falastiin ilaahay ha nasariyo meeluu ka socdaa. Yurub hadday kusii darsantana maxaa la dhahay waxaa waaye adduunka dhaqaalaha zaa'id ay u saameynaysaa. marka lacagtiina dahab gashta walaalayaal. dahab ha la gashto, waa digniin dahabka ku dadaala, dahab kaydsada, gasacyo dahab aruursada. dadka ganacsiga online-ka ku jiro lacagihiina online-ka ha ku halaynina, bangiyada ha ku halaynina, kala soo baxa oo dahab gashta. dahabkiinana barkada insha Allah biidhnillah inaad ku badbaadaan baa laga yaabaa. fideogan hala sheergareeyo, meel dheer hala gaarsiiyo. waa digniintii ugu dambeysay oo Leyla Cabdilatiif aa idinkaga keenayo. maxaa la dhahay maadaama aad warkeeda ka aaminsantihiin inuu khuraafaad yahay, laakiin midaan aniga waxaa isdhahay ummadda dad unbaa yani aa ka faa'iidi doono. maxaa la dhahay waxyaalana waxaa la dhahaa maalayacni, waxyaalaha qaarkoodna oo saanoo kaleeta arrintan meel public ay ka sheegaysaa media mush yani maxaa la dhahay inay meel maalayacni ama social media ka sheegaysaa. dabcan intaasoo lacagay ku qaadanaysaa inay arrimaha noocaan oo kaleeta ay ka hadasho. ummadda yani maxaa la dhahay khatarta soo socota iyo waxa wanaagsan oo la sameynayo ee u sheegto. marka adinkana waxaa rajaynayaa wax kasta ha sahalsanina. kaydsada dahabka hala kaydsado.